kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee doc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeeddada ideeqsi hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone waa tilmaan la daaho bismillaahi raxmaani raxiim klibkaani wuxuu ku saabsan yahay doorashada puntland 2019 iyo qorshaha dhiman badan oo murashaxiina oo raacaya dhaqankii awal horay u jiray oo ahaa in codka la iibsado si kursiga xukunka loo gaaro dadka reer puntland meelay joogaanba waxay ka walacsan yihiin musuqaas isaga ah inuu puntland badi doono inay hor u kac samayn weydo badan ayna seegto meekhaankii ay soomaaliya ku lahayd oo ugu ahayd hoggaanka in la hirgeliyo doorashada qof iyo cod iyo nidaamka dimuqraadiga ah waxaa meesha ka baxay in la gaarsiiyo puntland qof iyo cod si sheekooyin tiro badan iyo tuhun tiro badan oo ay u haraan taasi waxay keentay in lagu soo xulo xildhibaanada 66 ah sidii waagii hore loo maro hogaamiye dhaqameedka markii hogaamiye dhaqameedka loo maro la soo magacaabo dadaan tayo badan lahayn islana saan qaadi karin dabadeedna ay puntland u dhutiso 66 xildhibaan ninka murashaxa ahay wuxuu maawilayaa inuu 34 cod ka helo dabadeedna uu ku soo baxo ninkii murashixii 34 cod hela oo 66 ka hela ayaa xas kala dusi doona kuna amar ku taaglayn doona talada puntland haddaba murashaxa doonaya inuu musuqmaasuqa ku soo baxo qorshihiisu waa sax 2 tilaabo ayuu qaadaya odayga soo xulaya gaariland cruiser uu ballan qaadaya si uu ugu soo dooro xildhibaan isaga u dacayan 2 xildhibaankaas dacayan waxaa codkiisa lagu iibsan karaa oo ku filan $10,000 wixii ka bilowda oo 34 xildhibaan oo loo baahan yahay ay murashaxa ugu kacayso $340,000 su'aashan baa u baahan jawaab xilkasnimo leh isimka ama nabadoonka qorshahaas xildhibaan ku soo xulay ma istaahilaa inuu dowr ku yeesho hogaaminta bulsho marxaladan adag ee taariikhda puntland ama tan soomaaliyeed xigmad soomaaliyeed baa ahayd 3 baa saldano kaa qaada ama xukun kaa qaada ama odaynimo kaa qaada 1 gacan guran waa bakhaylnimada 2 garwecsan waa cadaalad darrada oo bulshadaas ku hogaaminayo 3 guddoon jilicsan waa go'aan aan fulin lala daba joogin haddaba nabadoonka ama isimka gees mara 3dii saldanada ka qaadi jirtay ma istaahilo inuu bulshadaas dowr ku yeesho inuu wax ku beeriyo ama wax ka samata bixiyo bal wuxuuba ku yahay lugooyo haddaba daneeyo kasta oo doorashada puntland su'aalahan jawaabahooda
meel ha ku sugo. Su'aasha koowaad, murashaxa laaluushka la haaraya xagee buu lacagtaas ka keenay? 2, miyaanay ahayn mid bulshada Puntland uu ka nahaabay ama qorshihiisu yahay inuu ka nahaabi doono? 3, hogaamiyaha musuqaas ku soo baxay inuu cadaalad deegaankaas ku dhaqo ma looga fadhiyi doona? Aniga oo jawaabaha su'aalahaas fakarkiina iyo garaadkiina u daynaya, waxaan halkaan 2 baaq uga dirayaa hoggaan dhaqameedyada iyo xildhibaanada la soo magacaabi doono. Baaqa hogaamiyayaal dhaqameedka Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa cimri dhammaaday ceeb laguma sagootiyo. Cimrigiinna ceeb ha ku sagootina. Doorashadan ayaad cod iyo saamayn ku leedihiin. Doorka xiga nidaam qof iyo cod ah baa loo guurayaa. Taariikh xun ha ka teginina. Tan labaad, xildhibaan ha soo xulinina. Xildhibaan aad ku soo xusheen aqoon iyo waafinimo madasha keena. taas ayaa ubadkiina iyo sumcadiina dhaxal u noqon doonta. baaqa xildhibaanka waan ogahay in meel hoo u baahan aan hadal daweyn karin. waxaan kale oo ogahay inay adag tahay inaad ka maadataan lacag halkaa laydiin soo dhigay waqtigan jiilaal oo lagu jiro iyo shaqo la'aanta jirta awgeed. mid baad soo ogaanaysaan, waxaad ogaanaysaan hantida laydinku laaluushayo in adiga iyo bulshada reer Puntland laga dhacay ama laga dhici doono. markaas go'aanku wuxuu noqonayaa lacagi waa cunis. mabda'na waa nin iyo xilkasnimadiis. xilkasnimadaas ayaa bulshadu idinka fadhida. ha u hiilin murashax musuqa ee u hiili bulshadaada, aayaha ubadkaaga iyo magaca Puntland. bulshadu waxay kugu haysaa qiimayn sida aad ka yeeli doonto mas'uuliyadaas lagu saaray. qiimayntaas waxay dhaxal u noqon doontaa noloshaada siyaasadeed ee mustaqbalka, maadaama loo guurayo nidaamka doorashada ee qof iyo cod. madaxdaalinayse wixii lagu dabiibi dadweynaha la weydiiyey. subaga duufankiisa dadku ka dhaashadaane. subaga duufankiisa dadku ku dhaashadaane. haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday? hadduu dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday? waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone. waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone. adoo degan u fiirso, adoo degan u fiirso ujeedada deeqsi. dhaqanku duugsi wayaan dalkiisu ku dhaataa. dhaqanku duugsi wayaan dalkiisu ku dhaataa. haddii dadkiisi aaso dufan basaasay weeye. haddii
dadkiisii aasoo dufan basaasay weeye waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse halkii duxlo gadooni dadweynaha la weydii